انت ما كحشونا ما كنت جريت دوما ما كنت جروا كحشونا معنا بليز مقبريانا بليز معنا مقبريا يومي بس هاي كيب ما انت ما كحشونا ما كنت جريت دوما ما كنت جروا كحشونا معنا بليز مقبريانا بليز معنا مقبريا يومي بس هاي كيب waxaa 24 saacadood ugu dambeeyay waxa baraha bulshada dhex wareegayay muuqaal gaaban oo fadeexada kaas oo laga soo duubay fanaanka caanka ah Qadarkeeyow iyo Ilwaad Elman kuwaas oo iyaga oo baashaalaya sidoo kalena dadku ay sidoo kalena aad uga soo falceliyeen ayaa waxa baraha bulshada qabsaday muuqaalkaas oo gabi ahaanba dadka ay ku sheegeen mid aan shaxuma ah laakiin si aanay ka muuqanin wax aan shaxuma waan aragnay si kastaba ahaatee fanaanka caanka ah ee Qadarkeeyow maaha markii ugu horeysay ee muuqaala inta la soo xado fanaan kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed la soo gariyo baraha bulshada sidoo kalena la wadaago dadka shacbiyadooda ay sareyso sidoo kalena fanaaniinta ayaa ah dad runtii aad loo taageero sidoo kalena aad loo jecel yahay ayaa haddana waxa jirta in muuqaalada gaarka u ah iyaga inta la jabsado akoonadooda la soo jabsado sidoo dabadna muuqaaladooda inta la soo qaato baraha bulshada lagu faafiyo taas oo gabi ahaanba u muuqata in gabi ahaanba Qadarkeeyow ay la mid tahay in fanaaniinta kale waxyaabaha lagu sameeyo in isagana lagu sameeyay waxaana muuqata in fanaaniintu ay ku socoto dagaal dhanka social media taas oo aad moodo sanadadii ugu dambeysay iyo bilihii ugu dambeysay in baraha bulshadu ay ku baahaysay waxaana aad moodaa in shacbiyada ay ku leeyihiin fanaaniinta Soomaaliyeed bulshada dhexdeeda la isku dayo in gabi ahaanba la joojiyo ama gabi ahaanba la dhaawaco taas oo muuqata in ay tahay wax hadda ku cusub maadaama fanaaniintu markii hore aanay jirin in waxyaabo noocaas oo kala inta laga soo xado ama muuqaal sidaas oo kala inta akoonada la jabsado baraha bulshada la soo gariyo dad fara badan ayaa ka falceliyay muuqaalkan waxaana ku sheegeen in uu yahay runtii mid aan laga jaxanjixo ama gabi ahaanba ah mid fadeexad ah taas oo baraha bulshada lagu faafiyay waxaana ay ku sheegeen in runtii aanay ka filnaynin fanaanka caanka ah Qadarkeeyow in gabadhan Ilwaad iyadana ah gabadh caan ah sidoo kalena ay ku baashaalayaan goob cidlo ah halkaasina ay u muuqato inay tahay fadeexad ay gabi ahaanba ku sheegeen in wax la soo bandhigay ama wax la soo dhoobay aanay ahayn ay tahay mid sax ah waxaa soo badanayay maalmihii ugu dambeysay in muuqaalo inta laga soo xado fanaaniinta sidoo kalena fanaaniinta muuqaaladooda inta la soo googoosto la isku soo kabkabo sidoo kalena baraha bulshada la soo dhigo taas oo hadda aad moodo in ay aad u sii socoto ama ay ka sii dareyso mana aha markii ugu horeysay inta fanaan muuqaaladiisa inta akoonadiisa la jabsado baraha bulshada lagu faafiyo muuqaalo isaga sir u ahaa taas oo hadda aad moodo in akoonada sida Snapchat-ka iyo Facebook iyo sidoo kale Instagram-ka aan gabi ahaanba la xakameyn karin maadaama ay soo baxeen kuwa karis ah ayaa waxaa jirta in muuqaaladaasina ay ku faafin doonaan baraha bulshada maadaama fanaaniintu ay yihiin kuwa sumcadda ku leh bulshada dhexdeeda sidoo kalena ay yihiin dadka caanka ah waxaana la sheegaa sanadadii ugu dambeysay inay soo kordhayeen dadka inta badan caanka ah ee lagu waxyeelinayo baraha bulshada kuwaas oo gabi ahaanba u muuqata in hadda heerkoodu uu sare u sii kacay waxaana inta badan lagula taliyay dadka caanka ah sida fanaaniinta iyo siyaasiyiinta in gabi ahaanba ay ka taxadiraan in ay gabi ahaanba muuqaaladooda iyo sawiradoodu ay ku kaysadaan meelaha qaar laakiinse waxaa looga digay in ay ammaanka akoonadooda adkeeyaan si aan gabi ahaanba looga jabsanin muuqaalkan Qadarkeeyow laga soo duubay sidoo kalena la sheegay in gabi ahaanba laga soo xaday isaga Elman ayaa waxa la sheegay inuu muuqaalkan uu ahaa mid sir u gooni ah sidoo kalena ay iyagu isla ogaayeen asaatay muuqaalkan ayaa inta badan la dhex wareejinaya baraha bulshada taas oo lagu sheegay inay tahay fadeexada dhanka ah Elman oo sidoo kale oo ay saxaab yihiin fanaanka caanka ah ee Qadarkeeyow laakiinse waxa la sheegay in Qadarkeeyow iyo Elman ay asxaab ahaayeen sidoo kalena uu hore uga dhaxeeyay jacaylka awgiina uu sababay in muuqaaladan oo kale inta iska duubaan oo ay asxaab ahaan iyagoo baraha bulshada dad asxaab agdhow ay soo galiyaan maadaama dadka asxaabta la ah fanaanka caanka ah ee Qadarkeeyow iyo sidoo kale Elman ay aad u badan yihiin waxaana lagu dhaleecinayaa in gabi ahaanba ay iyagu ka dambeeyaan oo ay jabsadeen halkaasina ay ka soo xadeen muuqaalada saas awgeedna ay ugu faafiyeen baraha bulshada isku soo wada duuba maaha markii ugu horeysay Qadarkeeyow inta muuqaal laga hado baraha bulshada la soo dhigo
waxaa jiray fanaaniin kale oo fanaaniinta Soomaaliyeed ah kuwaas oo inta laga soo xaday muuqaalo la soo galiyay baraha bulshada sidoo kalena qaar laga been abuurtay oo ay ugu dambeysay fanaanka caanka ah ee Qamar Suugaani taas oo la sheegay in gabadh uu uuriyay sidoo kalena baraha bulshada waa in badan haysatay dad fara badan ay ka faaloodeen waxaana u muuqatay in weerarkii ugu dambeysay lagu soo qaaday fanaankaasi taasina ay gebi ahaanba dadka asxaabta la ama gebi ahaanba dadka taageera ay gebi ahaanba aad uga xumaadeen waxaana jirtay in dagaal uu dhanka familka ah fanaanka halkaasi kaga socday sida awgeedna lagaga faa'iideystay maadaama uu Badaragsan iyo Qamar Suugaani ay hayeen dad aad isku jecel fankan in badan kusoo jiray gebi ahaanba ay kala tageen